Ethiopia ayaa bayaaqada toddobaadka waxa ay ku baaqday in dadka oo dhan lagu qabto mudaharaadyo kale oo dheeraad ah oo lagu soo horjeedo dowladda maalmo kadib markii kumanaan dibadbaxayaal ay soo baxeen wadooyinka magaalada Gondar ee ku taala waqooyiga dalkaasi Ethiopia. Oromada ayaa ku andacoonaysa in tan iyo markii uu ka bilowday dibadbaxa wadankaasi la dilay boqolaal ka tirsan qowmiyadooda sidoo kalena xabsiga loo taxaabay kumanaan kale. Qorshaha ayaa soo baxan cusub ayaa lagu dhawaaqay xilli ra'iisul wasaaraha wadanka Ethiopia oo talaadadii ka digay in dalka uu la leecayo colaad ku salaysan qowmiyad oo kamid ah oo ka jirto mid kamid ah dalalka dariska la wadankaasi Ethiopia. Emmanuel Gonza ayaa faafahinta inoo diyaariyay kan Maxamed Ali soo jeediyay. dowladda Ethiopia oo si joogto ah loogu eedeyn jiray inay caburiso mucaaradka ayaa haatan waxa soo food saaray mucaarado aanan horay u soo marin oo uga imaanaysa laba ka mid ah qowmiyadaha ugu waaweyn dalkaasi Ethiopia. maalmihii la soo dhaafay kumanaan qof oo ka soo jeeda qowmiyadda Amxaarada ayaa waxa ay magaalada waqooyiga ku taala ee Gondar ku qabteen barnaamij si nabadgelyo u dhacay oo ay uga soo horjeedeen dowladda. haatan bulshooyinka ka soo jeeda qowmiyadda Oromada oo ah tan ugu tirada badan Ethiopia ayaa waxa ay sheegeen in sabtida iyo xadda soo socota ay qorsheynayaan inay qabtaan dibadbaxyo ay doonayaan inay ku qabtaan dhammaan gobolada dalka. waxay nooga cabanayaan dilal iyo xadgudubyo ay sheegayaan in si joogto ah loogu bartilmaameedsado qowmiyadda. dhacdadii ugu dambeysay ayaa dhawaan waxay ka dhacday magaalo la yiraahdo Awaday halkaas oo sida la sheegay ay boolis ku toogteen ugu yaraan 6 qof. hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sheegaya in xogaga ammaanka ee Ethiopia ay ugu yaraan ku dileen gobolka Oromia 400 oo qof wixii ka dambeeyay dibadbaxyadii gobolkaasi ka dhacay bishii November ee sanadkii tagay. dibadbaxyaasha waxay ka caraysnaayeen qorshaha dowladda ay ku dooraysay inay ku ballaariso caasimadda Addis Ababa oo ay gaarsiiso qaybo ka mid ah gobolka Oromia. dowladda haatan waxay ka tanaasushay qorshahaasi waxayna sheegtay in laga badbadiyay tirada dadka la sheegay in halkaasi lagu laayay. xisbiga talada haya ayaa waxa uu ku guuleystay dhammaan kuraasii baarlamaanka doorashadii la qabtay sanadkii tagay. isla xisbigan ayaana talada dalkaasi hayay tan iyo 1991.